qudus waa mid kamid ah magaalooyinka ugu da'da weyn dunida muddadii ay jirtay waxa magaalada la dumiyay ugu yaraan 2 jeer 23 jeer waa la hareereeyay 52 jeer waa la weeraray halka 44 jeer xoog loogu kala wareegay gacan ku haynteeda barnaamijkan waxa ku eegaynaa taariikhda qudus oo kooban qudus waxa la asaasay 5000 oo sano ka hor dadkii degay waxa ugu horeeyay carab la oran jiray kancaaniyiin waa qoomkii nabi muuse alayhi salaam iyo reer bani israa'iil la amray inay la dagaalamaan yuhuuduna ku lahayd orod adiga iyo rabbiga dagaalama anagu halkan ayaanu sii fadhiyeynaaye fircooniyiintii ayaa xukumayay oo ka talinayay taariikhdu markay ahayd 1300 ciise hortii dawlad yuhuudu yeeltay ayaa muddo xukumaysay waxaana magaalada u taliyay xilligaas nabi daa'uud iyo walaalkii nabi suleymaan alayhi salaam xilli lagu qiyaasay 1000 sano ciise hortii dawlad la oran jiray Baabil ayaa iyaduna muddo ka talinaysay taariikhdu markay ahayd 500 sano ciise hortii waxa iyaguna magaalada ka soo talinayay oo qabsaday beershiintii ka soo jeeday dhulka hadda loo yaqaano Iiraan taariikhdu markay ahayd 300 sano ciise hortii dawladda Greek ayaa iyaduna gacanta ku haysay Qudus ilaa laga gaaray sanadii 63 ciise hortii boqortooyadii Roomaaniyiinta ayaa gacanta ku dhigay sanadkii 63 ciise hortii waxayna gacanta ku haysay ilaa 636 taariikhda miilaadiga ciise dabadii markaas oo muslimiintu ay furteen ciidan uu hogaaminayay Abu Ubayda Aamir ibn al-Jarrah waxayna dadkii ku noolaa magaalada codsadeen inuu kala wareego amiirka muslimiinta waxaana yimi Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu oo magaalada la wareegay heshiisna la saxiixay dadkii loogu yimi si loo nabadgeliyo sanadkii 622 ku dhawaad wuxuu ahaa xilligii rasuulka naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatay la dheelmiyay Makka ilaa Qudus ilaa kor loogu qaaday samada islaamku wuxuu xukumayay sanadii 636 ilaa 1099 muddadaas waxa magaalada loogu noolaa si degan waxaana laga dhisay dhismayaal ay caan ku tahay sida qaybta laga dhisay masaajidka Al-Aqsa dhinaciisa ee uu dhisay Abdul Malik bin Marwan sanadii 691 waana dhismaha Qudus caanka ku tahay ee muuqaalka dahabiga ah leh dawladaha Yurub ee Kristaanka u badan ayaa ku soo duulay Qudus dagaalkii mactabka loo yaqaanay waxayna qabsadeen sanadii 1099 Saalixidiin al-Ayyubi ayaa sanadii 1187 dib uga xoreeyay Kristaankii ku soo duulay mar kale ayay hadana qabsadeen Qudus ciidamadii Kristaanku dagaalkii mactabka waxayna haysteen 10 sano waxaana dib looga xoreeyay sanadii 1244 isla xilliyadaas waxa soo weeraray oo qabsaday Mongooliyiintii dunida weerarka ku soo qaaday 1244 waxaana xilligaas ka xoreeyay Mongooliyiintii oo gacanta ku dhigay dawlad la oran jiray Mamalik dawladda Uthmaniyiinta ayaa waxay iyana la wareegtay sanadii 1616 waxayna ka talinaysay ilaa 1917 dagaalkii koowaad ee dunida markaas oo Ingiriisku ka qabsaday Ingiriiska ayaa isaguna gacanta ku hayay sanadii 1917 ilaa 1948 wuxuu Ingiriisku Yuhuudda u ballan qaaday sanadii 1917 inuu dal uga dhisayo Falastiin waxay Yuhuuddu qabsadeen Qudus qaybteeda galbeed sanadii 1948 waxayna qaybta bari oo ku yaala masaajidka Al-Aqsa oo Urdun ka talinaysay ay qabsadeen 1967 golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa isku raacay 1967 qaraar uu ku diidan yahay qabsashada Yuhuuddu ay qabsadeen Qudusta bari ilaa xilligaasna waxa dunida looga yaqaanaa dhul xoog lagu haysto 1994 ayay golaha wakiilada Mareykanku ansixiyeen qaraar ay Qudus ugu aqoonsanayaan caasimadda Yuhuudda iyagoo dalbaday in loo raro safaaradda Mareykanka ee Israa'iil walow madaxweynayaashii dalkaasi ay ka gaabsadeen waxa xusid mudan madaxweynaha Mareykanku inuu hadda qaraarkaasi dhaqan geliyay dhowr arrimood oo xaqiiqo ah dadkii Qudus loogu yimi ee ugu horeeyay waxay ahaayeen carabtii kancaaniyiinta Yuhuuddu xilligii nabi Muuse alayhi salaam ayaa Qudus ugu horeysay oo lagu amray inay dagaal ku galaan hal mar ayay Yuhuuddu xukuntay Qudus waana xilligii nabi Daa'uud iyo nabi Suleymaan alayhi salaam